بسم الله الرحمن الرحيم حلقتني waa xalqadii saddexaad ee aynu kaga warramayno abuurkii nabi aadan calayhi salaam marka waxay noo marisay markii marxaladii lixda ahaa uu soo maray waxaan markaas maanta aynu jecelnahay inaanu dul istaagno bal hadda ibliis iyo nabi aadan qisadii ka dhex dhacday nabi aadan calayhi salaam markii uu ilaahay ruuxda uu ku afuufay ay malaa'igtu ay u sujuuday ibliis ayaa diiday in uu sujuudiye ka qayb galo markaas ilaahay waxa uu weydiiyay ma manacaka an la tasjuda id amartuk waxa uu markaas kibir oo halkaasi uu ka bilaabay ibliis oo uu yiri ana khayrun minhu khalaqtani min naarin wa khalaqtahu min tiin aniga ayaa ka khayr badan oo aniga waxaad iga abuurtay dab isagana waxaad ka abuurtay tiin hadaba marka ay xaaladu halkaasi taagan tahay ilaahay waxa uu ku soo rogay nacdal jannadii oo waqtigaasi ay deganaayeen uu ka saaray inta aynaan halkaasi dhaafin waxa isweydiin leh ibliis ma wuxuu kamid ahaa malaa'igta markaasi ilaahay amarka siiyay ee uu sujuuday nabi aadan ibliis kama mid ahayn malaa'igta ee waxa uu kamid ahaa jinka illa ibliis kaana min al-jinn fafasaqa an amr rabbih ayadaasi waxay sheegaysaa inuu ibliis kamid ahayn malaa'igta uu kamid ahayn markaasi waxa la yiraahdaa ibliis waqtigii aynu soo dhaafnay ee xiniya binna iyo jinku ay isleeyeen ee dhulka ay isku baabinayeen aw ibnu kathiir lahaa waxa uu ilaahay u soo diray jinka in ay xina iyo binna oo dhiig daadiyay ay iyagu baabiyaan sameeskooduna uu kala gaar ahaa oo saynu aragnay oo kale iyagu dad jurmi leh ay ahaayeen oo makhluuq jurmi leh ay ahaayeen xagga jinkuna uu ahaa isaguna makhluuq kale oo dab ka samaysan oo ilaahay dab ka sameeyay dabka marka la hulciyo ee aw ololka noqdo inta yar dhexda ku jirta ee yelowgaan dhaahdo ama dacarka waa inta ugu kulul baa la yiraahdaa intaasi ayuu jinku ka sameeyay waqtigii aynu soo dhaafnay ee xiniya binna iyo jinku ay isleeyeen ee dhulka ay isku baabinayeen aw ibnu kathiir lahaa waxa uu ilaahay u soo diray jinka in ay xina iyo binna oo dhiig daadiyay ay iyagu baabiyaan sameeskooduna uu kala gaar ahaa oo saynu aragnay makhluuq jurmi leh ay ahaayeen xagga jinkuna uu ahaa isaguna makhluuq kale oo dab ka samaysan oo ilaahay dab ka sameeyay dabka marka la hulciyo ee aw ololka noqdo inta yar dhexda ku jirta ee yelowgaan dhaahdo ama dacarka waa inta ugu kulul baa la yiraahdaa intaasi ayuu jinku ka sameeyay jinkii waqti dambe hadana malaa'ig loo soo diray oo malaa'igtii ay baabisay aynu soo niri kadibna halkaasi marxaladii ay aadan sameeyskiisii iyo iraadadii ilaahay inuu aadan sabulka ku dushiisa ku sameeyo oo khaliif uga dhigo ay noqotay ayaynu niri marka waqtigaasi hadaba la baabinayay jinka ee ay malaa'igtu leenaysay inkastoo inaan nas cad oo xagga diinta ayna ku hayn hadana nasaska cad ee qisaska ee la wariyo ayaa waxa ay sheegayaan ibliis oo ilmo yar ah ayaa malaa'igtu ay soo qaaday oo qaybahaasi jinka la baabinayay ayuu ibliis kamid ahaa markaas ilmo yar buu ahaa malaa'igta ayaa qaaday waxayna geysay halkii ay joogeen jannadii halkaas ayuu ku koray malaa'igtii cibaadadeedii uu la qabsaday waxa la yiraahdaa buqcad u dhaxaysa dhulka ilaa samada oo awna ibliis ku sujuudin muu jirin magacii baa laga bedelay casisiyaa'il magac noocaas oo kale ayaa loo bixiyay kadibna malaa'igta ayuu iskala joogay oo markaas awla dhaqnaa laakiin waqtigii ilaahay uu nabi aadan uu sameeyay ayaa kibir iyo isla weyni aniga macnaheedu dhaama xagga abuurka anaa dhaama ayuu ilaahay nacdashiisu ay ugu dhacday وله الكبرياء في السماوات والارض إله وكليه ayaa iska leeyahay kibirka fil aadan kala loogama ogolo cid kale oo loogu ogoliyo makhluuq loogu ogoliyahay inuu kibraana ma jirto waxana weeyaan kibirkaasi hadii uu yimaado waxa dhacday inta badan dhibaatada ibliis ku dhacday oo kale waxyaalaha aan qisaskan aan u sameeynaa in cibrada lagu qaato ayaa kamid tahay taas sidaasina waa sababtii uu kaga soo baxay ibliis jannada ee looga soo eriyay halkaas wax ku haray markaasi aadan iyo xawa ayaa ku haray qaybta ku xigta waxaanu sii wadi doonaa hadii la yiraahdo ibliis markii hadaba laga saaray jannada ee uu dibadda uga baxay iyo waxa markaasi ay jirtaa qiso kale oo ka dhex dhacday labadooda oo aynu halkaas ka sii bilaabi doonaa hadii la yiraahdo la socdo wanaagsan